imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Somaliland oo guud ahaanba ka bilaabmay dalka ayaa sidoo kalena xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ka bilaabmay maanta waxaana kormeer kala duwan ku maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Somaliland علي حامد جبريل iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi waxaana ay kormeeradaasi ku tageen goobaha dugsiyada ay ka socdeen imtixaanaadka shahaadiga sida dugsiyada sare ee Bursada Cabdisalaam dugsiyada dhexe ee Saciid Daawud iyo waliba Imaam Shaafici Umar bin Khadaab iyo kuwa kale ee gobolka ka jira labadan mas'uul oo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii kamid ahaa oo anigoo ku sugan magaalada Berbera iskuulka Bursada oo ka bilaabmay ayaan joogaa ku sugan imika si fiican bay u bilaabmeen waxaan rajeynayaa dhammaan shacabka Somaliland iyo ardaydaba inay imtixaanku ku guuleysan doonaan hadii la yiraahdo gaar ahaan Berbera iyo dugsiyada sare foonfooradoodii ama fasalkoodii afraad si wanaagsan oo degan buu bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee magaalada Berbera ardaydu ku galayaan ayaa waxay ka duwan yihiin jawi ahaan xilli kulul oo xagaa ah inay ku soo beegmeen ardaydani imtixaanaadkaasi galaysa iyadoo duruuftaasi ay tahay mid ay kaga duwan yihiin guud ahaanba ardayda kale ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ee aan ku noolayn goobaha aan xeebaha ahayn Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV Berbera